daawadaha qiimaha badan oo ku soo dhawow muuqaalka xiga ee Toosane Technical. Sidaan ognahay applicationada baraha bulshada aan kala adeegsano waxay leeyihiin dhammaan waxa loo yaqaan history. Facebook wuxuu leeyahay history, Messenger kala mid, Snapchat, TikTok, YouTube iyo applicationada kale oo aan halkan ka xusi karin ee laga isticmaalo baraha bulshada. Historyga sidaan ognahay waxa loo talagalay in qofka uu ku soo muujiyo waxyaabaha yar yar sida qoraal yar inuu ku soo qoro ama hal sawir ama inuu soo dhigo ama muuqaal aan ka badnayn 24 ilbiriqsi inuu ku soo share gareyn karo historygiisa ayaa qof kasta loo ogol yahay. Historyga 24 saac kadib hawada ayuu ka baxayaa oo waa la waynayaa. Su'aasha meesha taal ayaa ah 24 saac kadib intay aadaan waxyaabaha history la saaro sida qoraalada, sawirada iyo muuqaalada gaagaaban ee la soo dhigay historyga. intee aadaan 24 saac kadib waa su'aal. Su'aashan waxa isu weydiiyay qaar ka mid ah asxaabta ku xiran channelka iyo Facebook page-ka khaasatan aan saaxiibanahay. Markaan raadiyay waan arkay ana xitaa waxa ii kordhay cilmi dheeraad ah. Waxaan rabaa inaan kula wadaago marka waxyaabihii aan anigana raadiyay oo faa'iido ii noqotay adna si markaas ay faa'iido kugu noqoto. waxaan rabaa muuqaalka inaan ku tuso sidee historygaaga Facebooka maalintii ugu horeysay ee aad soo dhigtay historygaaga sawir ama qoraal ama muuqaal ilaa iyo maanta sideen ku heli karaa waxyaabaha aan soo saaray oo 24 saac kadib aan waayi jiray. run ahaantii meel ayay ku keydsan yihiin oo maalintii ugu horeysay oo aad isticmaashay historyna wax soo saarto ilaa iyo maanta oo historygaaga waxaa saarto meel ayay ku keydsan yihiin oo Facebooka ma dayicin xogtaada qaybta historyga. yaan mar badan kugu daalnin aan ku tuso sida loo arko maalinta ugu horeysay ilaa maanta waxyaabaha historygaaga aad soo saartay haddii ahaayeen qoraal, muuqaal, soo dhawaada. marka aad doonayso inaad ogaato historygaaga waxyaabaha aad soo dhigtay meesha uu ku keedinayo 24 saac kadib markii ay baxaan waxaad tagaysaa applicationkaaga Facebook. kadib waxaad ka xulinaysaa gacantaada midka qaybta sare ee menu barka. kadib waxaad tagaysaa qaybtan hoos ee ku qoran tahay settings and privacy. markaad settings and privacy aad furto waxaad ka xulinaysaa halka ay ku qoran tahay settings. markaad ka xulato kadib waxaad tagaysaa profile settings oo qaybtan sare ah. kadib halkan qaybta hoos ayaad u soconaysaa waxaad raadinaysaa halka ay ku qoran tahay activity log. halkan ay ku qoran tahay manage your posts ayaad taabanaysaa. kadib waxaa kusoo bixi doonto wajhadan qaybta sare gacantaada bidix waxaa ku qoran archive meesha ayaad taabanaysaa. marka aad taabato kadib archive waxaa kusoo baxay windowgan kadib qaybta sare ay ku qoran tahay history archive ayaad taabanaysaa. waa halkan meesha uu ku keedinayo historygaaga maalinta aad soo dhigtay maalinta ugu horeysay history aad soo post gareyso ilaa iyo maalintan oo hadda inta ayuu dhigayaa. marka aniga intaan isoo muujinaa laakiin wax ka badan qaybta hoos ay yeelaan xogaa refresh u baahan yahay laakiin qaybta waa qaybii u dambeeyay soo dhig kuwan oo kale 15 ama 15 August soo dhigay xitaa markaas dadka live ka saar ama live ka saar oo arki doontaa. sidoo kale waxaad samayn kartaa sawirka u baahan tahay waa la degi kartaa tusaale waa kan oo soo sii baxay. sawirka u baahan tahay waa la degi kartaa oo gallery ayaa markaas ku save gareysan kartaa. tusaale ahaan sawirkan waxaan soo dhigay 23 February aan la dego. tusaale ahaan waxaan leeyahay halkaan saddexda ilig ee sare taabana kadib waxaan leeyahay save. haddii aan delete u baahanayn delete aan leeyahay save ayaan leeyahay kadib wuxuu si toos u aaday gallerygayga ayuu aaday. xitaa waa sii fiiri kartaa waxyaa qadka inuu culays ka yeelayaa xogaa refresh dhig kadib asaa hor usii bixi doona. marka halkan ayuu galayaa oo wixii markaasi historyga la soo dhigay maalinta ugu horeysay iyo maalintan hadda aad dhigayso. ku mahadsanid daawashadaada. fadlan muuqaalka sii share garee si ay ugu faa'iidaystaan asxaabtaada kale. haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar. haddii Facebook aad ka daawanaysana follow garee like saar. ku mahadsanid daawashadaada.